hadda waxaa soo baxday ururada adduunka oo FIFA iyo AFAPA waxay sameeyaan dawladda ma ogola wasiirka ma ogola wasiirka ayaa ah Olombikada ninka haysta oo ugu sareeya laakiin hadda 20 sano wadanku burbursanaa Olombikada way ka madax banaanaatay wasiirkii waxaan doonaynaa marka ama in Olombikadii ay magacii iyo saamigii soo qaado oo dad u soo qaadi kara dhalinyarada Soomaaliyeed loo doorto ay noqdaan kuwa u soo qaadi karo dagaal geli kara ilaa meeshan dagaal weyn baa ka jira ruuxantiina anigu waxaan ka qayb galay shir ayaan dhawid ka dhacay Minnesota oo looga hadlayay burcadbadeeda marmarka qaarkood way saxsan yihiin sababtu waxa weeye laba kala garan karo wax sax ah nimankan badda sunta ku shubaya iyo oo ku shubaya muxuu ahaa khayraad guranaya kuwa saxa iyo kuwa kuma shaaka lama kala garan karo sababtoo ah iyagii baa loo soo dhiibaya waxa la leeyahay ku shuba badda marka nimanka burcadbadeeda naftirkooda marmarka qaarkood marka u fiirsatid inkasta oo ay si khaldan ku bilowdeen haddana dad badan oo aqoon-yahanaha waxay xaqiijiyeen dhibaato intaa ka qodo dheer inay wali sii jirto meesha run ahaantii marka waxaan usoo noqonayaa bahda sportska waxaan rabnaa hadda wixii ka bilowda gabdhihii waana la joogaan anigu gabdhaha ayaan credit ugu badan siinaya runta markaa loo hadlo because aniga gabdhaha ii keena dad badan oo ciyaartooy ah ama dhalinyaro ah oo aan hayno besides our shaqadeeni waxa aanu maaragtay waqtiyada aan firaaqadan haysiinaa carruurta yaryar inaysan meelaha ku halaabin sportska waxaad ogtihiin waa dhaqaalahana mar kasta aanu ku horumarino waxaas waalidiinta baxsha funded kama helno dowlad community kama helno waxaa loo baahan yahay waxaan soo ballan qaadnay hadda in Toronto ciyaaraha lagu qabto oo Europe iyo Mareykanka ay ka yimaadaan taas marka waxaan idin sheegayaa inaad u diyaar garoodaan taariikhda runta tihiin sidaa ugu diyaar garoodaan markasta dowladda inaad soo dhaweysaan waa mahadsantihiin I'm looking sporting ahaan jiro waxaan really storage waa ku fiida badnahay ma oo all right inta haddana waxaan u yeelay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo community activist ah oo madaxda gabdhaha Soomaaliyeed iyo community-yaasha ka shaqeeya ah uma aan imaan horta inaan farta isku taagtaagin waxaan u nimid xafladan laakiin ujeedadeedu waa inaan wasiirka soo dhaweynaa wasiirkan inaan ka warbixin dheeraad oo badan uu haystaa marka insha Allah ta'ala bal wixii dacwo oo qabo markii wasiirka si gaar ah uu tagri aan u yeelay marka xareedi Ibrahim Bols سلام قار ولي سلامي وزير كمدني عبد واحد علمي عمر علمي وحانك على السلام يا مروده وزير كأريمها دبده مرو لكي حاجة دمانتي وسلامتي magaceedii ma xafidi kari salaan gaar ah waxaan idinka goodaa dumarka Soomaaliyeed oo Toronto degan Your Excellency wasiirka iyo Vice Prime Ministerka waxaan ku sheegayaa dumarka Soomaaliyeed oo Toronto inay yihiin halyeey oo nabad jecel always u taagan inay Soomaaliya nabad hesho
وحاوة وضع كدبعتها كجرت وحيكون عذاب مصر دمر يعرور mana qabaan portavoce u hadla dumarkaasayto waxa la garbaasha dariiqada waa dumar waxa dhagxaanta lagu dilaayo waa dumar waxa dharkooda la fiirinayo waa dumar markaan personal loo soo dhigtay waxa waaye Soomaaliya dumarka markii loo baahan yahay lama use gareeyo waxaa la dhahaa lacag loo baahan yahay dumar oo soo baxa no more theatre le quinto tinyaan dhahaya no more haddaana ay dumarka Soomaaliyeed wadankaasayta annaga xuraysan karo walaa Ugandas walaa qof kale tuman oo xureynay dhagaxana ku xureynaa Soomaaliya haddaan annaga istaagno united aan naqano we don't need nobody else banaanka nooga imaan Soomaaliya inuu xureeyo xanuunku wuuna wada taabtay markii cunuga la dilay hooyo ay dhashay ninka la dilay wiilka oo la isgaraynayo oo la dilay hooyo ay dhashay hooyadiina markii ayada loo soo dhigtay markii jiritaanka Soomaaliya loo soo dhigtay to avoid escalation kana xoogsado waxa waaye annaga waa inaan tashina asir dumar ragga waxa waaye 20 years ayaga problem create gareeyay ayaga dhibaatada wadaan ayaga laga joogi lahaa dagaalka wadaan Soomaaliya waxa xureysay SYL ragga hayeen laakiin ragga waxa hadana dumar daba soconin baan aan wahan daabkooda u gadin ya naftooda u hurin cunada ka daba wadin wadankaas lama xureeyay am xarna ma bixi leensaan am xarada markii la saaray cunada karinay anjarada ilmaha afkeed ka soo gooysay baa ku sameeynaysa oo support garas dumar ay hayeen صح وين always la markii la hadlay dumarka waxa gadaal la marsiinaya فارس النين there is no anymore فارس النين فارس النين your excellency يقرأ لي هاو أديك وحاوي وحتى وزيرة تاي وحتى vice prime minister تاي أديك النين أو respectful لقى مدير تاي فنان كان نقول ما أنا قاس أنا إنه ضد كانوا جودها الجو وحاوي دمر كان رواينا institution على قرر civil أنجلي أنا وحاوي ضد كانوا كنت قاعد ما يعني قري أنا كقلي كنت قاعد من عرفت ترنتو وضد كان حريصنا Soomaaliya way ku dhibaataysantahay your excellence uguma dhibaataysan passport ahaan uguma dhibaataysan xuquuq bini'aadan ahaan waxaan ugu dhibaataysanahay wadankeena ayaa rabnaa waxaan rabnaa barafaan ka tagno wadanka dila bixin garay laakiin ana siiyo chance madaxweynaha waxaa naga gaarsiinaysaa dumarka ha loo hadlo dumarka maalinta personal issue loogu soo dhigtaalo ha laga hadlo please dumarka ha loo hadlo haddii kale annaga soo baxayno hadlayo حلوة وما سكت. وحنا رأينا إنه ويسيو وحنا كهل ميدوكا بيسكاس تلفون كان. أوكي. هذا لو حنقول رجينا ذاك من الدلالة يو ربوبة يعيشوا لو تعيش.